بسم الله shaqo waxa jirta su'aal soo noqnoqotay waxa inoo dhigan tahay sidan muxuu yahay xadka ugu sokeeya ee qofku muslim ku noqon karo ama muxuu yahay xadka ugu sokeeya ee gaalku islaamka ku soo gali karo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حدك ugu sokeeya ee qofku ku noqon karo muslim waa maxay يعني ما هو الحد الأدنى حدك ugu sokeeya oo qofku lagu xukumi karo inuu muslimay waa maxay marka taas jawaabteeda waxa weeye dadkii waxa weeye gaalada ahaa oo la rabay inay muslimaan waa kala duwan laakiin kulligood hal arrin baa laga rabaa qasadka sharciga ah waxa weeye inay Allah kaliya caabudaan oo cibaadooyinka kale iyo wixii la caabudi jiro dhan ku kufriyaan ama lagu caabudo awood loo maleynayo iyo inay khayr hayaan oo caafimaad iyo nabad iyo roob iyo barwaaqo keeni karaan saadarteed looga baqaayay oo maartay loo bariyay oo wax loo gowracayay oo maartay la ziyaaranayay oo la tala saaranayay qaabkaas ama loo caabudo qaabka raacsanaanta oo wax allaale wax amraan la fulinayo oo iyagii la raacayo oo wixii iyagu ay jideeyaan lagu dhaqmayo laba qaab mid kastaba maartay yani qofku ku jiree labada qaabba inay zuulaan way qasadka la rabo marka hore shahaadada waxa laga rabaa dadku inay muslimaan baa la rabaa inay maartay Allah kaliya u hoggaansadaan baa la doonaya waxay u hoggaansanaan jireen oo caabudi jireen inay ka baxaan baa la doonaya horta maqsadku waa saas waxna waxa weeye waa qasadka shariicadu leedahay marka la leeyahay dadka loo yeero islaamka loogu yeero qasadka shariicadu leedahay waa maxay marna waxa weeye qofkan sheegtay inuu ajiibay inta ku filan oo maartay ku muslimi karo oo la oran karo waa qaatay arrintii shariicadu ka rabtay waa fuliyay la oran karo waa imisa maxay tahay way macnaha labadaas baa la rabaa marna in la isku qaldin macnaha shahaadada iyo islaamnimada la isugu yeerayo shariicadu qofka bini'aadamka waxbay ka rabtaa waxay ka rabtaa shirkiga inuu ka baxo cibaadatu ghayr ilaahi inuu ka baxo bil i'tiqaad wal cibaada ama bil ittibaac maartay iyo yaani khuduuc iyo raacsanaan mid kastaba ahaatee waxa la rabaa qofku inuu ka baxo cibaadatu ghayr ilaahi qasadkaas shariicadu leedahay gaaladuna waa fahmi jireen oo markii la yiraahdo ubuudullah ma lakum min ilaahin ghayruhu jawaabaha ay ka bixinayaan quraanka wad ku aragteen ayna la taariku aalihatina ilaahiyadii miyaan ka tageynaa bay oranayaan li shaa'irin majnuunin yani in gabaya oo waran miyaan uga tageynaa yani ilaahiyadii atanhana man naga reebaysa an na'budu ma ya'budu aabaa'una waxa beesha aabudi jireen miyaan naga reebaysa asalaatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aabaa'una wa naf'ala fi amwalina ma nasha xoolaha iyaga wax saan doon inaan ka yeelno iyo salaadaadu noo diidaysa iyo arrinta awoodid وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك بيان قولي رعاد وما نحن أنه ما هم بتارك كوكتك يا آلهتنا عن قولك مركا شهادة إسلامنا لا قربوا وحيا هيد عبد الله ولا تشركوا به شيئا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا واسكوا معنا وإلهية الديدة وعدك لها آبدنا والله كريم وقال سمع سلاسة يهد وحلا قربوا ضدك قفك مركو أجيبه وإيماده ومارته وأقبله ثم ظاهرية وأقبلي markaas intee ku filan su'aasha haday tahay taas marka waa arrin kale waxa weeye qasadkii waa ka muslimiintana waxa la rabaa qofka haday u arkaan inuu arrintaas aqbalay inay horta ka aqbalaan weeye oo inuu muslimay oo i'tiqaadiyaan weeye marka gaaladii marka waagi nabiga kaleey salaatu salaam jirtay noociyay ahaayeen arrintaas aad u dhageysta dad badan baa jaahil ka ah oo waxay maqleen gaalku la ilaaha illa allah yiraahdo muslimaya kaliya ay haystaan intaas cilmi ka haystaan marka gaaladu waa badneed noociyay ahaayeen waxa jiray kuwa rumaysnaa Allah sukadii kuwa awood leh oo la caabudo inay jiraan sida kuwii nabigu ka dhashay kaleey salaatu salaam alwathaniya alarabiya jirtay macna awtaan bay caabudi jireen sanamiya caabudi jireen aalihi u yaqaaneen malaa'ig bay caabudi jireen sanamiya u qori jireen aalihadii bay oran jireen Allahna waa ilaah weyn bay oranayeen kuwana waa ilaahay yar yar oo ilaahay u maraynayo wasiilan ka dhiganayna baadida saas ahayd marka waxa loogu yeeray la ilaaha illa allah ma jiraan ilaahay ka sukay Allah ilaahay la caabudo oo loo hogaansamo Allah ka sukay ma jiraan baa loogu yeeray aqbala taaway diideen aj'ala al-alihata ilahan waahidan ma ilaahiyadu halka soo reebay bay lahaayeen in hada la shay ujaab wa arrin la yaabay lahaayeen waa diideen waa inkireen waa ka dagaalameen waa la dagaalamay badar iyo uhud iyo khandaq iyo dagaalada maqlaysaan dagaalo diini bay ahayd qolo difaacanaysa wixii ay waagi hore weynayn jireen oo maamuus jireen oo caabudi jireen iyo islaamkii oo tawxiid khaalis la yimid Allah waxaan ahayn ma jiraan wax la caabudi kara ma jiraan saasa loo kala baxay oo marka loo dagaalamay marka ninkooda ka midka ah
hadduu mar yimaado oo nabiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam oo yiraahdo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annaka rasuulullah ama laa ilaaha illa allah yiraahdo ama aamantu billahi yiraahdo aamantu billahi wahdahu ama aslamtu lillahi yiraahdo marka waxbuu diidanaa wixii inuu ka tanaasulay baa loo arkay intaa waa ku filayd Umar bin Khattab marka hore waa la ogyahay inuu nabiga soo dilay xataa damxay soo cadow aadaada waaweyn buu ahaa Abu Jahl oo kale waan jir markii dambena xaqii baa ilaahay qalbigiisa geliyay waa kii inta nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa la jooga oo laga naxay markuu iimaanahay laga baqay markuu soo galay waa ninkii ashaati shahaadadii buu qiray wax kale lama weydiinay saxaabadu Allahu akbar biira takbiirsadeen oo ku farxeen Umar baa islaamay marka dadkaas oo dhan saasay ahaayeen marka wuxuu oran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka alla dagaalamayna carabta ah waxa la dagaalamayaa xataa yaqulu la ilaha illa allah ilaahay maartay la ilaha illa allah yiraahdo la ilaha illa allah looga istaagay taasi waa nooc gaalada kamid ah marka waxa jiray marka qolo kale oo kufaar ah oo ka sii shar badnaayo iyagu cilmigii kitaabadii bay yaqaaneen iyagu cilmiga kitaabadii garanaya oo og in nabi ilaahay soo diray oo soo diri doono oo nabigiina ay arkeen bay haddana waxay ku ballameen inay rumeyn oo raacin caadadoodii iyo kitaabkooda hore Tawraad iska haystaan oo qolo Yahuud ah bay ahaayeen Madiina la deganay nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex qabiil la deganeed siirada iyo taariikhaha iyo waa lagu yaqaanaa banu Qurayda iyo banu Qaynuqaa iyo banu Nadir waa la yaqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam Madiina u soo haajiray iyagoo degan oo la ilaha illa allah oranaya hatta shirkiga noocyadiisa wax ka yaqaan midba hatta nabiga mar uu yimid yiri asxaabta shirkiga sameeyaan oo kacbada ku dhaartaan kitaaba nabiga yiri kacbada ku dhaaranina dhaaranaysan rabbul kacbada marka dad saasay ahaayeen oo wax ka garanaya maartay yaani shirki iyo tawxiid wax ka garanaya ahaayeen la ilaha illa allah oranay waa diideen laakiin nabiga inay raacaan calayhi salaatu wasalaam waxyaabo ilaahay kufri ku sheegay oo shirki ana waa sameeyeen oo culimada warkoodii iyo aayadihii oo kitaabka ilaahay soo dejiyay ugu yaalay bay waxay uga tagi jireen shuyuukhda taladooda ay uga tagi jireen oo hadda kitaabka Talmuudka la yiraahdo Yahuudda haysato waa dad culimo ah wax laga qoray way haddana waxay rumaysan yihiin Tawraad in ka fadli badan yahay bay rumaysan yihiin ilaa hadda waa shaqeynaya marka Yahuuddu taasna waa ku jireen gaalnimadaasna waa ku jireen oo amarada ilaahay looga tagaayo amar bani aadam shahaadadiina la ilaha illa allahna waa lahayd hatta waxa nabiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam oo xadiistu sheegayaan nin qiray waa badnaayeen baan rajeynaya oo yiraahdeen waxaan marxaati ka nahay annaka nabiyun ina nabi ilaahay tahay baan qirqirayna bay yiraahdeen kaa wuxuu yiri oo fama yamnacukum maxay ka mancinaya anta tabi'una ina raacdaan oo shariicada iga qaadataan aniga shariicada ilaahay oo kitaabka ilaahay ii soo dhiibay qaadataan markaa bay yiraahdeen yahuudan ka baqaynaa inay dilaan hada macna saas yahay khulaasiis way marka dadkaas marka hore la ilaha illa allah haddana muhammadun rasuulullaahi bay qireen nashhadu annaka nabiyyun bay yiraahdeen kuwa muslimiin maxaa yeelay diyaar uma ahayn in raacaanba oo kitaabkoodina ka tagaan kitaabkan quraankana raacaan diyaar uma ahayn kuwa marka yahuud baa leeyahay wala kala duwanaa cibaadada kama dhaxayn muslimiinta iyaga meelahooda ku cibaadaysan jireen la ilaha illa allah way oran jireen kitaabkii Tawraad oo ay siteen bay akhrisanayeen kufaar bay ahaayeen nabiga agtiisa gaale ka ahaayeen dad gaala ah loo arkay la ilaha illa allah akhrinayaan macnay u wataan macnii la rabeena ma aha macnaha qasadkii sharciga ah ma aha oo waxa weeye haddii qasadka sharciga u qaataan axbaarta ay caabudayaan ka abar qaadanayaan waa ka tagi lahaayeen kitaabka ilaahay oo u dambeeyay quraankana waa raaci lahaayeen muhammadur rasuulullaahi waranahay laakiin muraadkooda ala muraadihim bay ku ashaateen ala muraadi sharci ma aha sharcigu wuxuu ka rabaa haddii ay shaataan in nabiga soo raacaan oo sida Allah u caabudi lahaayeen nabiga ka qaataan laakiin hadda tiraad ilaahay kaliya caabudaya laakiin sidaan ilaahay u caabudayo maxamed kama qaadanaye muusa ka qaadanayo ciisa ka qaadanayo hadda tiraad ama tiraad gaalada reer galbeedka ka qaadanaya iyaga maartay nidaam iyo dejinaya hadda tiraad shahaadadii nuski damba ka maqan macna waxa way la ilaha illa allah afka hore aad tirina waa maqan tahay oo iyada dhaqan bay ku maqan tahay nuski labaad oo ah nabiga in la raacana waa diidantahay nabiga waa diidantay sadarta islaam ma noqonayso marka haddii marka la isweydiiyo yahuudda maxay ugu islaamayeen la ilaha illa allah carabtuna ugu islaamayeen waa meelaha ka leexleexdaan wadaadadu weeye wadaado badan oo maarta arintu ka qasan tahay oo maarta baabka tawxiidka ilaahay ka murgiyay oo isaga murgay oo say u kala saaraan aan garanayn su'aasha waa ka cararaan yahuudi la deganayna kuma muslimiin waxa weeye wathaniintu ku muslimayeen la ilaha illa allah maxay haysaa sababtu waxay ahayd kuwaas haday mar ashaataan la ilaha illa allah yiraahdaan sanamyaday meesha uga dhaqaaqayaan nabi maxamedna waa la safanaya alayhi salatu wasalaam oo gargaarayaan waa rumeynayaan oo kitaabkii ka qaadanayaan nabi ilaahay inuu rumeeyo yahuudu laakiin iyagu la ilaha illa allah leh bay waxay la isu jireen kuwa beeninaya nabi ma hal iyo kuwa leh waa nabi carabta loo diray rasuulullaahi waa yahay maxamed rasuulullaahi ila al-arabi carabta loo diray khaasatan bilaaye carabta gaar ahaan loogu diray
annagana nabi waa Muusa isagana nabi ummiyiin weeye ummiyiinta carabta abaa loo diray qaar baa saas lahaa kuwa muslimayaan hatta haday yiraahdaan ashhadu an laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah laakiin qasadkoodu yahay inay raacin nabiga kuwa muslimayaan waa yahuud ba isku mid weeye laba qaybood ba yahuud kuwa muhammadur rasuulullah inkiraya oo nabi ilaahay ma baahane waa nin been abuuranaya aaminsan iyo kuwa qiraaya ninkan waa nabi laakiin nabi inaga la soo diray maahan carab baa loo diray kuwa la isku mid weeye ma kuwa marka sida wadaniga kale ku isaan lama oran karo marka xadul adna marka wax la xadidi karo maahay qol walba gaalnimada ku jiraan ka baxaan bal raba islaamkana qaatan wadaniintu waxa ku filay aamantu billahi inay aslamtu lillahi ku filay la ilaha illa huwa ku filay laakiin kuwa nabi maxamed inkiraaya inay nabi yahay waxa laga rabaa la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah hadana iltizaam shariica laga rabaa hadii la og yahay inuu ashaadanayo oo sunna doonayn iltizaam shariica quraanka inuu raaco oo nabi maxamed quraan ka qaato ee tawraad uu rabo inuu ku socdo وأشاهد لما يرادو وأشاهد لما يرادو مركا فكر قابلنا ما رترك قارك استوى وحي اسكيد لاقينا يعني هذا عن صحيحين وحي لا إله إلا هو يرادو ومسلم بلي يهودنا ما مسلم إسلام كلا النبي جديدين هورن لا إله إلا الله وحي يرادو ومسلم هورن حي لك دبا كان نغانيسا وحا لا يهود كو مسلميان إلا تعريف مركا بحين يسوى على الرواة إنه يهي يعني إنه جامع يهي يسوى هوسجل هيان نوعاس oo maarta waxbana ka maqnaanaynin marka maxaa lagu muslimaa hadii uu yiraahdo la ilaaha illa allah dad ba ku muslima dadna ku muslimaan kuwa doonaya hadii la ilaaha illa yiraahdaan sanamyada ee shirkiga ka baxay oo nabigana raacaya ku muslimaya laakiin kuwa raacsan kitaabo kale muslimiin ma yaan ilaa kitaabada inay ka tagaan ay qiraan oo quraanka raacayaan oo nabiga raacayaan waxba laga soo qaadi maayo kuwa maanta rumaysan kitaabada kale oo kitaabo gaalada dajisa qaadanaya oo wax walba u noqonaya oo hadana qoranaya waxaan dastuurka iyaga ahayn dad lagu ma ciqaabi karo lagu ma dhaqmi karo saarumaysan yahuudi ba ka roonay maxaa yeelay yahuudu kitaab munazil min allah oo tawraad la yiraahdo oo la yaqaanay oo taxriif geliyeen oo maartay ay hadalladii culimadii ay dhex geliyeen bay haysteen kitaabullah asal kitaabullah waa hadana mar hadii quraan yimid ilaa quraankaas aqbalaan inay ku dhaqmayaan gaal ay ahaayeen ma waa muslimiin lama oran karo hadii wali wada shahaadateynka akhrinayaan waa muslimiin la oran maayo ilaa ay rumeeyaan quraankan inuu raacid ka rabo waajib ku yahay kuwa marka maanta cilmaaniyada haysta oo maarta sharciyada kala haysta iyaguna waa islaamayaan lama oran karo shahaadateynka de maanta akhrinayaan ilaa ay sharciyada tuuraan oo quraanka kaliya qaataan hayla hadii lagu islaaminta yahuudda ku islaamnaa yahuuddaas islaami weeyday iyo shahaadateynka qaarkood qirayaan baa waxay marxaati ka tahay nin kastoo shariico kale raacsan oo quraanka meel iska dhigay inuu soo ku muslimayeen shahaadateen ay daliil u tahay marka wasanigi wuxuu ku islaamay la ilaha illa allah kitaabigi waxa looga fadhiyaa inuu yiraahdo la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah ki la ilaha illa muhammadur rasuulullah yiri laakiin arkaya ila al-arab ay u qarsoon tahayna oo lagu og yahay qabiiladaas in saas aaminsan yihiin lagu og yahay waa inay ku daraan ila jamiic al-khalqi waa inay yiraahdaan waxaan qiraynaa muhammad rasuul allah inuu yahay oo adduunka dhan loo diray oo inaan raacnay waajib nagu tahay waa inaan raaciyaan way waxa jira nin isoo muslim isku maleynaya ridoobaya dad baa sikidi diiday dad baa yiraahdeen maxamed la ilaaha illa muhammad rasuulullah laakiin musaylamana rasuulullah way siyaalo badan baa banaanka u gaaloobi karaa qof baa salaada diiday tukan ba ma yiri weligay tukan ma qof baa xalaalsanaya khamradii qof baa nabi inkiraya qof baa malag inkiraya quraan ku yaal aayad quraan qof baa inkiraya suurad qof baa inkiraya siyaalo badan baa qofkii u maleynaya muslim yahay tukanayo siyaalo badan u gaaloobi karaa kuwaasna shahaadateyn laga qaban maayo kaligeed maxaa yeelay soo shahaadateynka akhrinayo kufri kale ku dhacay shahaadateynkiina waa wataa wali kufri kale ku jira oo diinta waxa weeye xuduud bay quraankan iyo sunnada nabiga kaleey salaatu salaam xuduud bay la yimaadeen waxyaabaha lagu islaamaya waxyaabaha lagu gaaloobayo wax lagu gaaloobayo darajaad ah waxyaabaha dambi oo aan kufri akbar ahayn baa jira marka qof baa isoo shahaadateynka ku dhawaaqaya gaaloobaya dagaaladan hadda taariikhaha laga sheekeeyo oo xuruub ridda la yiraahdo yaa la dagaalamay dad shahaateenkii iyo salaadii ogol oo diiday sakadina dhiibaan dad shahaateenkii ogol oo salaadii ogol laakiin moodi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam nabi kale ka dambeeyay musaylama iyo bulayha iyo sajaax iyo yani dadkaas bay rumeeyeen oo waxay raaceen rasuul ilaahi way qabiil walba qof bay maartay raacday shaydaanka u qurxiyay marka xadul adna marka dil uu weydiyo oo dadka bini'aadamka maxay ku muslimaan oo ugu yar qof walba kufriga uu ku jiray inuu ka baxo way qof walba kufriga uu ku jiray inuu ka baxo way marka haduu ninkan la ilaha illallah kaliya uga baxayo sida wasaniinta arabti oo kale la ilaha illallah baa ku filan hadii la ilaha illallah kufriga ku dhex oranayay oo isagoo kaafira oo lahaa sida yahuudi oo kale
ومحمد رسول الله ديدنا محمد رسول الله مركو يراهد waa laga qabanaya haduu la ilaaha illa محمد رسول الله kufri ku oranayo محمد ila al-arab karumaysnaaba rasuul arab inuu yahay arab loo diray shaatinka laga qaban maayo waa inuu yiraahdo la ilaaha illa محمد رسول الله ila jamiic al-khalq inuu yiraahdo ama hada la macna inuu yiraahdo oo laga fahmaayo inuu ka tanaasulay fikradii hore waa inuu la yimaado midkii shaatinka qiraayay محمد رسول الله qiraayay oo la ilaaha illa qiraayay oo ridoobay oo ku ridoobay sakadii oo inkiray oo kitaabka Ilaahay ku taalay toobadaas ku islaamaya oo soo qiro maraq in sakadii kitaab Allah ku taal waajibna ku tahay kana toobad keenay baadidii hore iyo madaxdii hore kii salaada diidayna xadul adna waxa uu salaadii inuu tukado shaatiinkeena tajdiidiyo waa laga rabaa hay'ale markii uu kufriyo waa inuu soo noqdo oo shaatiinkii ku dhawaaqo salaadiina aqbalo saadarteed ba imaam bagawi fi baariga waxa ku yaala inuu yiri oo man kaana kufruhu qof kufrigiisu ahaa bijuhudi waajibin oo istibaaxati muharram حاران قف بنيستي أما مارت حق ديدن وإنكرسان دوها فيحتاج واحد الله بهنا يابير أن يرجع عما اعتقده وحي الرميين كسر لابته يا الله بهنا يابير مركز حد الأدنى واسلاس هل كلمة الأوران كردت قدام وكفر أنته يعني ما شرته حي لا دي عرب كل لا إله إلا مركز رديدي والثاني مركز رديدي لا إله إلا مركز لا ده يستكبرون بإله يرسكوا ونسينين إنهم كانوا إذا قيل اللهم لا إله إلا الله يستكبرون بإله يرسكوا ونسينين ويقولون وحيرونين إنا لتاركوا آلهتنا ما إلهي وتجينا لشاعر المجنون آلهة أسمرك أيوه ليهن كما تجينا ولقيهن لا إله إلا الله إن يرهدان وتدينهن يهود آلهة مروا ما يسنين سنوية مروا ما يسنين بقى لا إله إلا الله هو كلمة حق بلا هي حدنا مو مسلمين مركا هلك وحا قرانيسا كلمته إن dadka dhanba ay ku islaameyn nin walba waxa laga rabaa kufriga maanta uu dhex joogo inuu uga baxo waa kelmad jamiic kufri dhan looga baxaya hadii dhab loo qaato jamiic anwaac kufri dhan baa looga baxaya maxaa yeelay cid walba maartay suldaan sheeganayso la weyneynayo dhan baa lagu kufrinaya illa Allah ma Allah koonka abuuray mooyaane marka intaas waxaan rajeynayaa in la fahmay assalamu alaykum